hay-adda CCBR soo kaashanaysa hay-adda qaxoontiga adduunka ee UNHCR ayaa xaafadda danyarta ee Aadan Salebaan ee magaalada Burco ka hirgeliyay rug boolis oo ammaanka iyo nabadgelyada xaafaddaasi kor u qaadaysa oo loogu magac daray Mujaahid Carabi Leeye. Xadhigga jarka saldhigani cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay-adaha iska kaashaday hirgelinta saldhigani, maayirka degmada Burco ku-xigeenkiisa, taliyayaasha saldhigyada Burco, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer, isuduwayaasha wasaaradaha dib u dejinta, arrimaha bulshada iyo qaar kamida dadweynaha xaafaddaasi ee Aadan Salebaan. Waxaana ugu horeyntiiba faahfaahin ka bixiyay sida uu ku yimid hirgelinta saldhigani cusub iyo cidda iska kaashaday gudoomiyaha hay-adda wadaniga ee CCBR iyo mas'uul ka socday hay-adda qaxoontiga adduunka. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: dhammaanteen waxaa inoo farxada oo aynu maanta u fadhinaa xafladii aan ku fureynay xadhig kaga jareynay saldhigga loogu magac daray halyeeyay weynaa ee Carabi Leeye kuna yaala xaafadda Aadan Salebaan. saldhiggan waxaa lagu talagalay in kor loogu qaado security-ga ama ammaanka dadweynaha ku dhaqan danyarta ee ku dhaqan kaamkan Aadan Salebaan. sidoo kale waxaa ka faa'iideysanaya bulshada ballaadhan ee ku dhaqan deegaankan aadka u weyn leh oo saldhigga ugu dhow ku yaalo suuqa hoose. sida aawadeed waxaan rajaynaynaa inuu wax badan ka qaban doono ammaanka iyo security-ga dadka danyarta ee ku dhaqan kaamkan Aadan Salebaan. saldhiggan waxaa maalgelisay hay-adda qaxoontiga caalamiga UNHCR, waxaana hirgelisay CCBR, waxaa fududeysay wasaaradda dib u dejinta. sidoo kale qodobka ugu muhiimsan oo ah dhulka oo maanta aynu ognahay dalkeena qiimuhu ka taagan yahay halka marayo, waxaa bixisay dawladda hoose ee degmada Burco oo aad iyo aad ugu mahadnaqayno maayarka oo aan la'aantii aanu saldhiggan hirgelin kuna saxay gacantiisa. waxaan rajaynaynaa in saldhiggan uu noqdo mid u adeega dadka iyo dalkaba insha Allah tacaala. waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa CCBR oo partnerkeega oo hawshan fuliyay, dawladda hoose Burco oo ku deeqday dhulkan oo halkan maayarka ku ay ka fadhiyaan, wasaaradda dib u dejinta oo mashruucan fududeyso xoog nagala shaqaysay, iyo dhammaan madaxda kale halkan fadhida. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo saldhigga maanta xilliyeedii ku gungaadho inuu aan hirgelinayno furno. marka dadweynaha waxaan kula dardaarmaynaa in booliskana la shaqeeyaan, saldhiggan ay ilaashadaan. saldhiggan waxaan ugu talagalnay in barakacayaasha amnigooda iyo nabadgelyadooda uu ka qayb qaato. waxaa iyaguna ka mahadnaqay saldhiggani cusub kana hadlay baahida ay u qabeen guddida xaafadda Aadan Salebaan iyo isuduwayaasha wasaaradaha arrimaha bulshada iyo dib u dejinta. waxaana yidhaahdeen: waxaan leeyahay saldhigga kani waa saldhig loo baahnaa, aad iyo aadna loogu oomanaa. maanta xaafaddan Aadan Salebaan waxay u tahay guul bay u tahay. guddida Aadan Salebaan nahay maanta waxaa nala gudboon. marka hore Ilaahay baanu u mahadnaqaynaa, marka xigana hay-adaha CCBR iyo hay-adda kale ee hirgelisay ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. xukuumadda iyadana waa u mahadnaqaynaa. wasiirka dib u dejinta oo xil weyn iska saaray inay hawshan ay suura gasho. wax kaloo mahadle hay-adda UNHCR iyo CCBR oo suura geliyay inay tani qabsoonto. waxaan ognahay saldhiggu wuxuu ka mid yahay aasaaska adeegyada nabadgelyada. aad u dareemaya in dadweynuhu ay ku faraxsan yihiin saldhiggan cusub ee Carabi Leeye. Allaha maxariis. marka sida ay wada shaqeyn doontaan dadweynuhu iyo boolisku waa saaxiibka dadweynaha, dadweynuhuna waa saaxiibka booliska. marka si ay wada shaqeyn lahaayeen kulliba qoladan CCBR ayaa tababar ka qaban doonta. waxaa iyaguna ka mahadnaqay maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraade, ku-xigeenkiisa Master Xoda iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Gaashaanle Dhexe Cabdi Muuse, iyagoo si wada jir u tilmaamay kaalinta uu ka qaadan doono ammaanka iyo baahida ay u qabeen gobolka Togdheer iyo gaar ahaanba magaalada Burco. waxaan si aad ugu ammaan u mudan hay'adda CCBR ama NGO-ga oo runtii hawlgal weyn ka sameeyay in arrintani suurto gasho.
iyo hay-adda UNHCR oo iyana had iyo jeer barnaamijyada qaxootiga runtii qayb weyn ku leh. waa hadda labaad cid kastoo ka soo shaqaysay rugtan booliiska aynu maanta xadhiga ka jari doono oo ah xaqiiqatan meel aad iyo aad loogu baahnaa annagana warwar gaara xaafaddu laba shayba way noogu haysayoo waddada markaynu isaragno aynu ka wada hadlayno waddadaas gaar bay noogu mudan tahay ammaankuna gaar buu noogu mudnaa ammaankiisa haka waxaynu u hellay rug buliis baynu u hellayoo hay-adda UNHCR iyo CCBRS oo fulisay mashruucanna waanu u mahadnaqayn weliba anugu maayar ahaan warka waxaa ii keenay CCBRS qoladan ayay keentay in saldhigyo Hargeysa Burco may ahayn meeshu in Hargeysa ay hayso saldhigyo lacagtood ama ruga bilis hay-adda UNHCR la yidhaahdo deedna warqad baan qoray hay-addan ku socodsiiyey kulley hawshani annaga waa hawl bilays cid kastoo ka qayb qaadatay hadday maayar tahay hadday tahay golahiisa deegaanka hadday tahay dadweynaha xaafadda hadday tahay hay-addii dhistay cid kastoo ka qayb qabtay aad baan ugu mahadcelinaynaa waa rug ka tirsan saldhigga dhexe waa uu maamulo taliyaha saldhigga Khadar Faarax ninka la yidhaah saldhiggiisa hoos imanaysa marka dambe way iska naaxi doontaa oo kulley waa saldhigga dhexoo naaxayn weeyaan amnigana aad baa uga qayb qaadanaysa haddaan annagu nahay taliya qaybta haddaan nahayna waxba ka hakran mayno ciidanna waanu keenaynaa saraakiil adagna waanu keenaynaa laakiin waxaa laga doonayaa inay xaafaddu la shaqayso bilaysku keligooda waxba qaban maayaan ugu dambayntiina waxaa si wada jira mas-uuliyiintani xadhiga uga jareen saldhiggani cusub ee loogu magacdaray Mujaahid Carabi Leeye oo wax badan ka tari doona baahiyo ku gadaadna xaafadaasi. Khadar Cabdirasaaq Salebaan, Khadar Hanad, magaalada Burco.